magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa todobadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa ka jiray koronto la'aan aad u baahsan iyadoo sidoo kale dad aad u fara badan ay ka qaxeen guryaha ay hore u deganayeen goobaha ay korontada ka maqan tahay ayaa waxaa ka mid ah traffic light-ka caanka ee loo yaqaano Western iyo Lawrence sidoo kale waxaa jira goobo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin sida Albion oo aan dad kamid ah qoysaskaasi aan guryahooda aan ku booqanay sidoo kale waxaa ka mid dad ka soo qaxay Lawrence Square isla markaana raadsaday goobo kala duwan oo ka jira koronto sidoo kale waxaa jira dad aad u fara badan isla markaana da'dooda ay aad u liidato inay dawladda ay ku xariiso sheltaro waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka Soomaalida isla markaana haatan ku nool xaafado kala duwan waxaana ka mid ah dadkan maad carawo waa ku mahadsantahay booqashada noogu timid gurigeena maanta adigoo na wareysanaya weatherkii iyo koronto la'aantii dhacday Toronto ka dhacday bariyahan ka socotay ilaa ay haddana ay jirto dadka qaarkiisna ay korontada la yihiin ilaa ay 70 kunna hadda wali ayna u soo noqonin korontadii ay ka maqan tahay laakiin aniga oo ah Iftiin Maxamed Cabdullaahi deganna magaaladan Toronto ku noolaay muddo 20 sano iyo ka badan intaan wadankan joognay qabow badan waa soo marnay baraf badan waa aragnay laakiin tan oo kale tawligen ma arag waa hawo wuxuu Ilaahay keenay waaye oo dabiici ah waxa tahay dadka Soomaalida ee degan dalka Canada halkee aad deganeed magaalada Toronto waxaan ka deganahay xaafadda oo la dhahayo Lawrence Square okay Lawrence Square ilaa imeeqa maalmood ay haatan korontada ka maqan tahay waqti xaadir ahaan ilaa 5 maalmood waaye korontada naga maqan tahay sidii sabdidii u bilaabatay waaye maantana oo ku arbaca 5 maalin oo kaamil ah koronto la'aan aan fadhinaa ma dhicin in the history first time waaye oo dhacay ilaa 5 beri oo koronto oo maqan tahay khaas aan xaafadani qaarkood waa la soo deeyay laakiin qaarna wali korontada ma la soo deeynin inta aan ku guda jiray barnaamijkan waxaan la kulmay gabar Soomaaliyeed oo ayadana ka mid ah in dadkii Soomaalida ah koronto la'aanta ay ku saameysay magaalada Toronto ee dalka Canada magaaladan Toronto waxaan ku noolahay muddo dheer laakiin maanta camal ma arkin wiilgeen muddo week inay ka maqnaato koronto magaalooyinka ugu waaweyn North America ka tirsan tahay Toronto laakiin maayarka iyo dawladda waxay ku dadaalaysaa in state of emergency aanan galin aad loo dadaalayo korontadii way u soo noqotay inta badan dadka laakiin ilaa caawa 70 kun oo qof baan la'aan ah ayagana waxa loo furay xeryo oo lagu soo dhaweynayo ay cunto ku karsan karaan oo ay dawladda maamulayso laakiin insha Allah waa laga bixi doonaa ayagana waxa lagu talinaa ilaa sabdiga inay korontada soo noqoto ay nolosha caadi ku soo noqoto intii aan ku guday jiray barnaamijyadan noocan oo kale ayaa waxaan la kulmay mid ka mid ah oo ayaa ii muuqda haatan isla markaana baraf badan uu ku dhacay walaal magaca Axmed Cali Cumar oo deganahay magaalada Toronto marka hadeer waxaan u socday shaqo marka Toronto saan oo kale ebadkeedii ma noogu dhicin marka si la yaab waaye Toronto waxaan u jeedaa in baagaagii laanjiga aad wadatid something sidoo kale waxa ay dareemaya inaad bas ka soo degtay amba aad bas raaci rabtid shaqada miyaa ku socotaa ama soo ka timid ma hadda bas hadda shaqada baan u socdaa laakiin waa hadda hawada waa aad iyo aad way qabooban tahay marka about hadda week oo kale u soconaa oo Toronto koronto la'aanta jirto marka aad iyo aad ayaan u dhawo isbedelka ku dhacay basaska waxa ku dhacay hore 15 minutes ayaan sugi jirnay hadeer waxaan sugnaa about hour ka badan dadka ayaa sida idin muuqata waxa looga baahan yahay in ay gashtaan kaba aad u waaweyn isla markaana loo yaqaan safety shoes si ay barafka ay isaga ilaaliyaan maadaama dhulka dhan uu yahay mid isla siman barafkana isla markaana in muddo uu halkaasi uu taagnaa Mahad Carabi Waqali telefishinka Universal magaalada Toronto